السلام عليكم. هلا 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 ولا سليمان بن أحمد، مرحبا ولا ربي سبحانه وتعالى كيف تسدو، حياك الله وبياك. من هنا تبتدي خطواتنا الأولى، من هنا ترتقي درجاتنا أعلى، نكتب التاريخ في ورقات. ما walaalka runtii wallahi wax weyn ayaad ka dhigaysaa. ma walaal insha Allah ana ku kala tooriyo biidnillah, ana ku dhameeyay ana digo ogtahay insha Allah wax yar kadib ana kugu soo warcelinay walaal. هيا أخي الحبيب السلام عليكم. برافو midkaan iska ka bartay waa maxay maalinta ay xaalad ku xumaatay kaliya ayuu ku soo waxayay dadkan iyo masaakiinimada arkeen mid kasta maalinta xaalad ku xumaatay ayuu ku soo waxaya. maya walaal aniga iyaga markaan wax tariyo abaalmarin kama rabo, Allah subhanahu wa ta'ala ayaa abaalmarin ka rabaa. midda kale walaal nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu dhahay khayrun nas anfa'uhum lin nas, dadka waxa ugu khayr badan kuwa wax tara. bro runtii waad iga niyad wanaagsan tahay laakiin jiljilaac sidaan iska daawan ku leeyahay. laakiin walaal ma garanaysaa ajarka aad helaysid marka walaalkaaga muslimka ah aad wax tartid ama aad caawisid ama aad wanaag u samaysid maxay tahayna waxay tahay abaalmarinta nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu dhahay lian yamshi ahadakum fi xaajati akhihi khayrun lahu min an yackifa fi masjidi hada. qofkiin inuu u socdo xaajada walaalkiis, inuu qof muslima uu wax taro, inuu walaal muslima uu caawiyo ayaa kaga khayr badan inuu masjidkaygan kan ah uu ku ictikaafo. yacni wanaagaas aad dadka u sameynayso waxay ka khayr badan tahay masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam inaad ku ictikaaftid. bro inkastoo aan adoo kale aan noqon karin laakiin isku dayo waxaan caawin karaa inaan caawiyo. marka walaalkayow iyaga mahad celin ha ka sugin, laakiin xagga rabbi subxaanahu wa tacaala ajarka xisaabsa biidni illah. ayahay